daawadayaal kulanti waxaana wanaagsan meel kastoo ha joogtaan u diyaargaroobaha wararkeena maanta waa Jimco waana 26 bisha Juun 2020 daawadayaal wararkeena maanta Jimcaana kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay Puntland ciidamada ay tababar soo xirtay ku daabasho gobolkaasi Sool iyo dhaqaaqyo military halkaasi laga soo sheegayo hal qodob oo muujinaya tuhunka iyo khilaafka Cabdi Xaashi kala dhaxay madaxda qaranka loolanka adag ee ka taagan maqaaxi laga furayo xaruntii hore ee baarlamaanka iyo Cabdi Xaashi oo sheegay inuu u yahay gudoomiye mursal balse maxaa dhacay qodobadaasi kuba kala ayaa daawadayaal wararkeena maanta qayb ka ah kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka gaarka ee halkan aan ku baahino kuma sanad hadii aad tahay daawada nagu soo biiri aan ku hormar warbixintana ugu horeysa maamulka Puntland ayaa ciidamada ay tababar soo xireen waxay ku daabuleen deegaano kamid ah gobolkaasi Sool halkaas ay isku horfadhiyaan ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland maamulka Puntland ayaa dhawaan tababar waxa uu soo xiray magaalada Qardho ee gobolkaasi Karkaar ciidamo badan oo kamid ah kuwa maamulkaas kuwaas oo la sheegay in durba loo daabulo gobolkaasi Sool halkaas isku horfadhiyaan ciidamada Somaliland iyo Puntland ciidamadan ku hubeysnaa qoryaha culculus iyo kuwa fudfudud ayaa isla markaana wata gaadiidka dagaalka la sheegay inay ku biiriyeen ciidamada Puntland ee ku sugan jiida hore dagaalka gobolkaasi Sool talaabadan ay qaaday Puntland ayaa ku saayay iyadoo xilli dhawaan wasiirka warfaafinta maamulkaasi Puntland iyo Somaliland ay hawada isku mariyeen hanjabaaday waliba dhiilo colaadeed taasoo muujin karta in labada maamul markale ay dagaalamaan wasiirka warfaafinta ee Somaliland Saleebaan Kore ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan daandaansi kasta oo kaga yimaada maamulka Puntland xilli ay ka dhax aloosan tahay xiisad xoogan oo mararka qaarkood horseedi karta dagaal dhexmara labada dhinac Puntland iyo Somaliland wasiir Kor ayaa sidoo kale hadallo khilaafsan oo aflagaada ah u muuqata u adeegsaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani kaas oo ugu jawaabayay falcelinta wasiirka uu ka falcelinta hadalkii madaxweyne Dani uu ka jeediyay Qardho xilli tababarku soo xiriyay Cabdulaahi Timcade wasiirka warfaafinta maamulkaasi Puntland ayaa isna daba socda hadalka wasiir Kor waxa uu lahajad adag kula hadlay xukuumadda Somaliland Muuse Biixi wasiir Cabdulaahi Timcade oo ku hanjabayay inuu dhiig ku daadin doono hadii ay Somaliland iskaga bixi weydo dhulka xuduudda ee labada maamul ee ku wada maraysan ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kamid ah wasiir Saleebaan Kore ayaa ku tilmaamay nin maqaar saar ah oo aan awood badan ku leen xukuumadda sida uu hadalka u dhigay wasiirka isagoo eedan weerar afka ku qaaday wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Puntland waxaan rabaa inaan u sheego Saleebaan Kore dhulka Soomaaliyeed waa dhul ay leedahay Puntland gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan doonaynaa in si nabadgelyo ah ay iskaga baxaan ciidanka ayuu yiri wasiir Cabdilaahi Timcade wasiirka warfaafinta ee Puntland tan iyo waqtigaas xiisada ka jirta gobolka Sool ma deganeen waxaana marba marka ka dambeeyay la soo sheegay in halkaas ay ku biiriyeen ciidamo badan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa culculus kuwaas oo ku biiriyay dagaalka waxaana la soo sheegay in ciidamo badan oo Puntland kuwaas oo tababar lagu soo xiray magaalooyinka Qardho iyo waliba Boosaaso ay ku biireen jiida hore dagaalka kuwaas oo la sheegay in qayb ka noqon doonaan dagaalka lagu soo horjeedo maamulka Somaliland Dani iyo Qoorqoorna waxa la sheegay in ay ku kulmi doonaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug madaxweynaha maamulkaasi Puntland iyo waliba madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Saciid Cabdilaahi Dani ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay ku kulmaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug halkaas oo uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulkaasi Galmudug sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo ku sugan Boosaaso la falay safar dhanka dhulka uu ku tago magaalada maalmihii la soo dhaafay waxa jirta hadal hayn ku aaday labada madaxweyne ku kulmi doonaan xuduudda labada maamul si kaga arrinsadaan arrimo muhiim ah ku saabsan xaaladda qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac ka wada hadli doonaan ayaa waxa kamid ah amniga magaalada Gaalkacyo dagaalka Al-Shabaab iskaashiga xiriirka ka hortagida colaad beeleedyada ku soo laabtay deegaano kamid ah gobolkaasi Mudug amniga magaalada Gaalkacyo ayaa ina qayb ka aad loo adkeeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo Puntland ayaa kulmo ka wada magaalada kuwaas oo la sheegay in la kulmayaan dhinacyada kala duwan maamulka Puntland iyo Galmudug oo dorisay siyaasadda ayaa la sheegay in hadda ay sameeyeen xiriir cusub oo ku dhisan wada shaqeyn iskaashi dhexmara labada maamul waxaana sii kordhaya isfahamka labada dhinac tan iyo markii ay labada hogaamiye ay soo kala maamuleen Puntland waa hogaamiyaal cusub ee la wareegay labada maamul ee Puntland iyo Somaliland
hal qodob ayaa laleeyahay waxa uu muujinaya tuhunka ugu weyn ee khilaafka Cabdi Xaashi ee markaana kala dhexeeya madaxda sare dalka kaasoo gaaray heerkii ugu sarreeyay. Gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa Arbacadii soo saaray qoraal uu ku sheegay xeerarka doorashooyinka golaha shacabka in kuwa baalmarsan sharciga oo qodobo qaar wax ka bedel lagu sameeyay. War-saxaafadeedka gudoomiyaha ayaa daba socday sida la sheegay isfahmo ku socdaalada kulamo asaga iyo weli madaxweynaha u dhaxeeyay. Waxaana la sheegay tani markaas xasilooni darro siyaasadeed ay wajahayso madaxtooyada. Waxaana jira hal qodob oo marqaati u noqon doona cabashada gudoomiye Cabdi Xaashi kaasoo ah dooda baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka sida dhaqsada la u meelmarinaya sharciyada iyo waliba ajendayaasha kale ee la xiriira xeerarka doorashooyinka. Sidoo kale dooda aqalka sare ayaa waxaa marqaati u noqonaya gudoomiye Cabdi Xaashi marka loo eego taageerada ku helay labada maamul Puntland iyo Jubbaland oo walaac ka muujinaya dardarta baarlamaanka oo ay ku meelmarinayaan xeerarka la xiriira doorashooyinka qoondada haweenka kan gobolka Banaadir iyo kuwa kale. Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu gadaal ka riixayo qorshaha dejinta kuraasta iyo waliba in xeerarka doorashada durba ay meelmariyaan golaha shacabka iyadoo la doonayo si duuduub aan aqalka sare la horgeynin. Puntland iyo Jubbaland labada maamul boqoraalo isku mid ayay soo saareen oo ay ku diidayeen dooda baarlamaanka iyadoo Isniintii madaxweyne Farmaajo uu sheegay in guud ahaanba la joojiyo wax walba ku saabsan dooda baarlamaanka. Wararka ayaa sheegaya in la doonayo dhammaanba xeerarkan in la ansixiyo ka hor inta madaxweynaha iyo weli maamul goboleedyada ay kulmin 5 ilaa 7 bisha Julaay taasoo madaxweynaha la sheegay inuu rabo inuu buubsiyo dhammaanba xeerarkan kadibna uu ka dhaadhiciyo maamul goboleedyada. Waxaa sii xumaanaya khilaafka u dhaxeeya madaxtooyada iyo baarlamaanka gaar ahaan gudoomiye Cabdi Xaashi kaasoo xalay xitaa laga waayay munaasabada ee madaxtooyada ka dhaceysay ee xuska toddobaadka xorriyadda oo bilowday. loolanka adag ayaa ka taagan maqaaxi laga furayo xaruntii hore ee baarlamaanka oo shakhsiyaad badan ay isku haystaan. Waxaa heer gabagaba maraya dayactir lagu sameeyay dhismihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhismahaas oo ku yaal agagaarka taalada daljirka Daason ee degmada Boondheere. Dhismahan ayaa waxaa lagu soo koobay oo kaliya wareegga xaruntii hore ee baarlamaanka lahaa taasoo buuq badan uu ka taagan yahay. Xildhibaano badan ayaana arrintaasi ka soo horjeestay. Waxaa lagu beeray beero iyo geedo qurux badan. Taalooyin ayaa laga dhisay si loo kireeyo lagana dhigo goob nasiina laguna shaaxeeyo dadka lacag badan loogu qaado. Warar lagu kalsoonaan karo heli channelkan ayaa sheegaya in mas'uuliyiin ka tirsan siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay arrintaasi ku lug leeyihiin kuwaas oo doonaya in halkaas la afduubo deetra laga dhigo maqaaxi laga helo cunto fudud oo laga iibsado halkaas dhaqaale badan laga sameeyo. Mas'uuliyiinta qaarkood ayaa la kulmay maamulka gobolka Banaadir iyo waliba xubnaha aqalka sare iyo golaha shacabka kuwaas oo ka dhaadhiciyay dhismaha xaruntii hore baarlamaanka maadaama hadda ay tahay meel aad u dayacan aan lagu shaqeynin in ay maalgeliyaan laguna shaqeeyo loona saxiixo muddo ku dhalaatan sano in halkaas ay ka sii shaqeyso maqaaxidooda. Sidoo kale mas'uuliyiintan xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay in madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay qandaraaskaasi ay ka soo saxiixeen. Muqdisho waxaa ka bilaabatay in goobihii hore ee dowladdu ay lahayd in laga abaabulo ganacsiyo waaweyn kuwaas oo qandaraas waaweyn laga soo saxiixanayo madaxda dowladda federaalka. Cabdi Xaashi waxa uu sheegay Musacad uu sheegay in gudoomiye Mursal uu u yeerayso kala hadla arinta xalinta khilaafka hase yeeshee uu sheegay in ay suurtagal noqon weyday in gudoomiye Mursal uu kala hadlo joojinta dooda baarlamaanka. Gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo u waramay BBC-da ayaa ka hadlay xaaladda khilaafka ka dhex jira golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Cabdi Xaashi ayaa sheegay inuu u yeeray Mursal si uu kala hadlo xiisada ka dhaxeysa labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo afarta xeer ee lagu murusan yahay ee dhamaystirkooda baarlamaanka oo si degdeg ah u meelmarinayo balse waxa uu tilmaamay inuu diiday gudoomiye Mursal in arintaas guud ahaan la joojiyo ilaa inta laga xalinayo khilaafka. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in ay isku dayeen wax ka bedel lagu sameeyo arintan hase yeeshee suurtagal weyda balse waxa uu eedan culus u jeediyay gudoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay marin habaabinayso kaasoo ku qasbaysa sida uu sheegay meelmarinta xeerarka doorashooyinka oo la doonayo in si duuduub lagu meelmariyo. Waxaan u yeeray gudoomiye Maxamed Mursal waxaan uu sheegay in arinta la joojiyo ilaa inta laga xalinayo khilaafka dooda baarlamaanka ee arrimaha xeerarka doorashooyinka. Nasiib darro gudoomiyaha wuu iga diiday hadalkayga inuu maqlo ayuu yiri Cabdi Xaashi wareysiga siinaya BBC-da. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday afar xeer oo muran badan uu ka taagan yahay kaasoo golaha shacabka durba qaarkood la meelmariyay asagoo sheegay in dhammaanba waxay meelmariyeen kuwa ku celisa oo lagu laaban doono maadaama gudiyada labada
wadajirka labada aqal ee baarlamaanka xeerarka ay soo diyaariyeen wax ka bedel lagu sameeyo qodobada qaarkoodna wax badan laga bedelo taasoo sheegay in muran iyo tuhno badan ay keentay ay sabab u noqotay sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay xeerarka qaarkood wax isdabamarin wax ka bedel lagu sameeyay taasoo sheegay in xubnahooda aqalka sare ay u cuntumi weyday in madaxtooyada ay wax ka bedel ku sameyso arintani ugu dambeyn waxa uu tilmaamay inuu ku talin lahaa in la isku yimaado shirweyne ballaaran oo dhinacyada dhan ay u wada dhantahay saamileyda siyaasadeed maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo dhinacyada kale si looga arinsado khilaafkan ugu dambeynna xal laga gaaro ayuu yiri gudoomiye Cabdi Xaashim wagaaga daawadayaal warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkiina maanta aad ka daawanaysan channel-ka wanaagga warka mid la mid intaan ku kulmi doono nabadgelyo.